shirarka nabaddu waxay ka kala dhaceen dhuusamareeb olol iyo sidoo kale ducoley wax ku siman ama ka yar 2 toddobaad gudahood natiijooyinka laga dhaxlay waxay ahaayeen in qaarkood lagu kala tagay waa natiijo hordhac laga soo saaray midka kalena duqeydii dhaqanka ee ka qayb galaysay jeelka loo taxaabay waa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee laga wariyay Galmudug maalmihii la soo dhaafay lana xiriira dagaalada qabaa'ilka ee ka socda Galmudug in ka badan 70% dagaalada qabaa'ilka ee ka dhaca Galmudug wali xal waara lagama gaarin waana sababta in ka badan 45 sano dagaalada qabaa'ilka ee Galmudug qaarkood ilaa hadda ay socdaan micnuhu ma ahan in aan la gaari jirin ama la dhigi jirin goglo nabadeed oo arintan la xiriira balse natiijo rasmi ah lagama gaari jirin xaaladdu wax ma ka bedeli kartaa in duqeyda dhaqanka qaarkood jeelka loo taxaabo si gogol nabadeed loo gaaro isla markaasna isku socodka bulshada iyo nabadgelyada gobolka uu noqdo mid xasiloon waa su'aal aan idin deyn doono jawaabteeda fadlan saaxiibada halkan ku jira haddii aad ka mid tahay muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada kale sidoo kale ka mid noqo saaxiibada halkan inagula sugan